waxaan wanaagsan daawadayaal iyo ahaantiin halkaani waa warbaahinta Barawe qodobada maanta warkeena Barawe News ugu doorka roon waxaa kamid ah daawadayaal Raiisal Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gudiga xakameynta COVID-19 shirgudomiye soo jeedkaasna oo ka qaybgalay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare Raiisal Wasaarihii hore ee dalkaas Malaysia Dr. Maxamed Naasir Wadaha wuxuu ka qaaday dalalka Mareykanka iyo Ruushka hubka ay ka iibiyaan dalalka Islaamka iyo Carabta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka ayuu maalinlaha shirka ay qabato oo ku sheegtay xarunta COVID-19 ee ku sii baahay gudaha dalka Soomaaliya iyo Khalifa Xaftar ayaa wuxuu ku dhawaaqay dib u garasho xeelad dagaal soo deegaanada ugu badnaa dowladda dalkaas Liibiya ay ka faramaroojisay intaas in kala Barawe News faahfaahsan daawadayaal ku soo dhawaada waa maalmo Arbaca taariikhdu ay ku beegantahay 20ka bisha May 2020 aan ku bilownaa daawadayaal Raiisal Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shirgudoomiyay gudiga la tacaalida COVID-19 Raiisal Wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo xanuunkan faafaha daran ee COVID-19 asoo shirka uu ka soo qayb galay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare shirka ayaa wuxuu dhinaca internetka uu ka dhacayay Raiisal Wasaaraha ayaa carabka ku adkeeyay sidii wax looga qaban lahaa fatahaadada webiyaasha Shabeelle ay ka sameeyeen magaalada Beledweyne iyo Jowharba gobolka Shabeellaha Dhexe Raiisal Wasaaraha ayaa carabka ku adkeeyay sidii loo gurman lahaa dadka deegaanadaas dhibaatadu ay ku haysato Raiisal Wasaarihii hore ee dalka Malaysia Dr. Maxamedna wuxuu daaha ka qaaday dalalka galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo dalka Ruushka hubka ay ka iibiyaan dalalka Islaamka soo sheegay inay yihiin hubkaas magacuyaal balse aysan ahayn kii saxda ahay oo asaliga ah oo originalka ahay soo qaata dalal badan ay ka iibiyeen dalalkaas hub casri ah balse sidii loo maleynayay si ahayn noqday Raiisal Wasaarihii hore ee dalka Malaysia ayaa sheegay dalal aad u badan oo hadda wadamada Islaamka kamid ah soo qaatay dalalka kamid ah Turkiga iyo Iran Indonesia iyo Pakistan inay hadda ku howleeyeen hub casri ah inay iyagu naftigooda amba hubka laga iibiyay inay si hormariyaan balse uu sheegay dalka Masar oo diyaarada gaaray 200 oo F-16 ay dowladda dalka Mareykanka ka iibisay inay dhici karto inay yihiin kuwa aanan wax weyn amba sida loo raba ahayn sida uu sheegayo Raiisal Wasaarihii hore ee dalka Malaysia iyadoo la aaminsan yahay dalalka heer galbeedka inay gacan tukaaleeyaan dalalka Islaamka iyagoo soo sheegay diyaaradaha F-16 ee asigu xataa naftigiisa uu sheegay dalka Malaysia ay Mareykanka ka iibiyeen aysan ahayn diyaaradihii asaliga ahay amba rasmiga ahay ee dalka Mareykanka soo qaato oo sheegay inay diyaaradahaas taangiyada shidaalkooda uu amba yar yahay amba uu yahay mid aan duulimaad dheer aynan geli karin diyaaradahaas sida uu sheegay Raiisal Wasaarihii hore ee dalkaas Malaysia Dr. Maxamed Mareykanka ayaa hubka ugu badan ka iibiya dalalka Carabta siibahan Khaliijka gaar iyo dalalka ay kamid yihiin Saudi Arabia goorsii horeyso sanadkii dhamaaday 2019 ayay ahayd inay duqeyn baahan ay la beegsadaan Xuutiyiinta xarumihii sifaynta ee shidaalka ee Sacuudiga iyadoo gantaalada dalka Mareykanka uu ka iibiyay dalka Sacuudiga ee Patriotiga ay arki waayeen diyaaradaha droniska ee duqeynaya meelihii sifaynta shidaalka soo sheegay taasuna ay cadeynayso inay yihiin kuwa magacuyaal amba magaca wata Patrioti aansan ahayn kuwii rasmiga ahay sida uu sheegayo Maxamed Raiisal Wasaarihii hore ee dalka Malaysia iyadoo goor sii horeysay aan horaan anagu arkaynay dalka Turkiga diyaaradihiisa droniska hubka uu ka iibisay dalka Ruushka dalka Syria ay diyaaradaha droniska Turkiga ay halabsadeen amba ay burburiyeen sidii badnaa raadaarada casriga ah iyadoo loogu talagalay 25 kilomitir ka xagga inuu ka burburiyo diyaaradaha droniska
gantaalada casriga ee raadaarka ee dalka Ruushka uu ka iibiyey dalalka badan sida Syria, markii midii ugu dambeeyay ay ahayd aan shalay ee dalka Liibiya oo ay diyaaradaha darooniska Turkiga ay dalka Liibiya ugu deeqeen inay burburisay raadaarada casriga ee dalkaas Ruushka oo geeyay dalka Liibiya. wasiiradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwose Abikar Nuur oo iyada shirka maalinlaha ay qabatay uga hadlayso xaaladda soo korortay ee COVID-19 gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay inuu xanuunka COVID-19 oo hadda gaaray 573 ruux, sida ay sheegtay wasiiradda dowladda federaalka Soomaaliya Marwose Abikar Nuur, iyadoo intaasna ku dartay dadka xanuunka ka bogsooday ay gaarayaan 188 halka dhimashadu ay sii cagcageynayso 61,000. wasiiradda ayaa dadka maalin kasta ay shir qabanayso ugu baaqda dadka inay kala fogaadaan, iyadoo sheegtay xanuunkan loo baahan yahay in la xakameeyo faafitaankiisa si looga yareeyo ay tiray wasiiradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. iyo General Khalifa Haftar ka Liibiya ayaa waxaa lagu soo waramayaa amba uu saraakiishiisa dhinaca militariga ay sheegeen inay ka baxayaan deegaano aad u badan oo caasimadda Tripoli ku dhawaay, iyadoo shiko sheegay inay taasu tahay xeelad dagaal ay isu diyaarinayaan, sida uu sheegay afhayeen u hadlay Khalifa Haftar. maalmihii ugu dambeeyay ayaa Khalifa Haftar looga adkaaday deegaanadii ugu badnaay, iyadoo dowladda dalkaas Liibiya ee Turkigu taageero ay guulihii ugu badnaay ay ka gaartay dagaalka dalkaas ka socda, iyadoo maalin ka hor ayay ahayd inay qabsadeen saldhiggii weynaaye Al-Wadiya ee dalkaas Liibiya oo Khalifa Haftar uu soo duuli jiray caasimadda Tripoli. kooxda Khalifa Haftar ayaa hadda war ay ku sheegeen inay xeelad dagaal ay uga baxayaan deegaanadii ugu badnaay, iyadoo dowladda dalkaas Liibiya ay wado dadaaladii ugu dambeeyay ee qabaa'ilada deegaanadaas oo Khalifa Haftar hore uga tali jiray ee dadka deegaanadaas ay wada hadal u socoto oo ay ka wada dowladda la aqoonsan yahay ee JNA. LNA waxay u agtahay in looga adkaaday dhinacii military ay LNA oo ay taageerayaan dowladaha Faransa iyo Ruushka iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga, iyadoo dalka Turkiga iyo Qatar hadda ay u muuqdaan inay guulihii ugu badnaay dhinaca military ay ka gaareen dalkaas Liibiya. daawadeel warkeena caalamka baraha news intaas ayuu ku egyahay. dhinaca farsamada waxaa noo fadhiya engineer Saki anigu Cabdiraxmaan warkeena idin socodsiinayay. faafinta warka waa xaggeena, sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal.